إلهي بمهذا ودون سقناتي عاو سوق كان مدشة وإن شاء الله دي ربي المنقن دونتو مدلان وحكوك لفاهينه مدشة وإنه ديجين Somali Innovation Hub Element International وكوض الشقية هرمرين digital transformation and democracy good governance and democracy in Somalia soo dhawaada dhammaantiin إن شاء الله دي ربي وحن كفر دونا آياتها قرآنك ونو آخر دونا عبد القادر جامع محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد magacay waxa la Cabdicasiis Cilmi waxaan ahay country director ka LM International LM waxa marka la soo gaabiyo laada waxay u taagan tahay af Swedish marka si aan umada u fahamsiino hay'adda marka loo fiiriyo magaca marka waxaan jeclaysanay inaan u bixino Soomaaliya markaan ka shaqeynayno ama internationally homepage-keena markaa gashaan ilaa iyo waxaan joognaa 18 dal Soomaaliya approach ahaan waxaan ka joognay Hargeysa kaliya marka leekare mashuunan u taagantay missions waxa waaye leekare af Swedish-ka waxa waaye doctor missions marka dadkii aasaasay waxay ahaayeen takhaatiir safar u bixi jiray dadka caawin jiray gaar ahaan koonfurta Afrika 1958 dadkaas marka wana faith based organizations oo taqaaniyo organizational NATO oo co-funding ka haysta lacag ay leeyihiin dadka ugu deeqa caawiya inta badan donor engagement-gana waxyaabo badan naga soo gaaraan laakiin inta badan waxyaabaha aan qabano annaga ayaa fangareena marka Soomaaliya xafiiska headquarters waa Garowe waxaan xafiis ku leenahay Hargeysa iyo Xamar marka waa cusubnahay aniga hadda shaqadan waxaan bilaabay 1 July marka waxa beesada iyo Garowe marka afar thematics area ka shaqeyn doonaa mid kamid ah mid caaw joogno oo digital transformation and innovation waana Somalia level laakiin si hab oo aan kula kulanay partnership-kii platform-ee markaan raadinaynay waxaan rajaynaynaa inay noqoto ambassador for our vision of Somalia because we working for Somalia level mid kale waxa way health ICT-ga oo gaabiska dalka jiro inaan u isticmaalno primary health ICT inaan u isticmaalno already waa la sameeyaa MCH laakiin xog male si oo hadlays democratization-ka meeshan ka galayna innovation-ka peace-ka waa data collective citizenship-ka xataa koobi karta ya rights leh si kooban dabcan sida ka muuqatay mowduuca iyo waxa halkan maanta in isku nimi waa dhalinyarada teknolojiyada digital maaragtay world-gan hadda cusub casriga ah iyo arrimaha inaga deegaankeena dabcan ka jira oo nabadda maaragtay aad uga shaqeeyno nabaddu ay issue weyn noo tahay maaragtay wadan 30 sano burbur kasoo kabasho burbur ku jiray nabaddu marka macno weyn ay ugu fadhido iyo ka shaqeynteedu iyo geed socodka dib u dhiska dawladnimada oo iyaduna saldhig u yahay geed socodka in democratization process uu ka hirgalo oo maaragtay dadku ay awoodii dawladnimada ay dib u helaan ay awood u yeeshaan inay doortaan dadka madaxda u noqon doona kaasna waa hanaan kale waa geedi kale oo isaguna Soomaaliya ka socdo dabcan 24 sano hal buu qoray marka maxay gabadha iyo dhalatay berigaas hadda 25 sano jirtaa marka runtii maxaa la dhahaa kala qaybintii Soomaalida qarniga 20aad maxaa la dhahaa nasiib darrada waa 500 oo bogo ku dhow yahay oo wada reference leh oo analysis leh oo wax walba leh oo taariikhda Soomaaliya 200 sano ugu dambeeyay wixii ka dhacay wadankan kamid ah waana sababtaas uu soo qaadanaya bogayga halkan way waxaan arkay dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha aysan ogeyn oo ay ka baahan yihiin anigu gurigay class oo history ma galin dugsiga sare farsamada gacanta Soomaaliya ka baxay European tagay mataqaana maxay University of Technology Stockholm ka baxay engineering galay economics galay ilaa iyo master ilaa PhD ku sameeyay jaamacadda macallin ka noqday marka maxay ahayd mataqaana isma arkin aniga history isma arkin laakiin 97 ay ugu dhalatay inaan Soomaali taariikhdeeda raadiyo marka waa another PhD thesis asagana oo mataqaana maxay ahayd oo culus oo insha Allah marka dambe oo buugga waa hadda marka soo badhig waa la wada gatay hadda waa soo daabacaya marka dambe on Garowe imaado ku soo noqon doonay ayaan rabaa habeen weyn oo habeenada Garowe soo maray oo taariikhda Soomaaliya lagu kala dhigaayo ayaan ila la qabtaa rabaa insha Allah taala waxa la yiri waxa ka tiraahdaa nabadda iyo teknolojiyada
iyo doorka ay ku leedahay maadaama inta badan aan nabad ka shaqeyno waxaa la yiraahdaa teknolojiyadu waxaa la yiraahdaa waa powerful magnifier marka nabadda laga hadlayo in terms of enhancing virtual societies dadka inta badan ay colaadaha kasoo kabanaya bulshooyinka colaadaha kasoo kabanaya waxaa la yiraahdaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo loo adeegsan karayo in dib la iskugu soo celiyo ama lagu kala kaxeeyo innaga dalkeenu muddo 30 sano ku dhow wuxuu la daalaa dhacay colaado shaqo la'aan macaluulo iyo dhibaatooyin soo noqonaya ama recurrent conflicts waxyaabaha la yiraahdo marka teknolojiyadu door nacay ku leedahay Ustaad Axmed baa ka hadlay oo isticmaalkeena teknolojiyada mar bayna wadanka toddobaad aynu ka galnay xagga access-ka ama helitaanka teknolojiyada